salaan ka baad waxaan rabaa markii horeysa inaan soo dhaweeyo madaxda maamul rugaha ganacsiga ee maamul goboleedyada ee halkan Muqdisho maanta shirka aan soo wada nimid shalay iyo maanta daraadba aan kulanka lahayn iyo mas'uuliyiinta rugaha ganacsiga mas'uuliyiinta sektarada ee ganacsatada ee waaweyn dalka inaan soo dhaweeyaan rabaa labada dhinac waxaan leeyahay dhamaantiin markii horeysa soo dhawaada marka labaad waxaan rabaa maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bishii labaad 2022 waxaa halkan isugu yimid madaxdii rugaha ganacsiga ee maamul goboleedyada oo ah gudoonka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintii ganacsiga ugu waaweyneed wax kalena ma ahan wax isugu yimaadeen inay isxog wareystaan tashadaan barnaamijka abaaraha iyo howlaha socda ka tashadaan barnaamijka howlaha doorashooyinka iyo waqtiga oo rugta ganacsiga asaguna hadda soo dhawaadana ay ka tashadaan wax badan ay iska yiraahdeenna oo isla gaareenna waxa noo soo jeedin doona agaasimaha noo soo jeedin doona laakiin waxay moodaa barnaamijkaas inuu wuxuu ku dhamaaday si tawfiiqa oo qurux badan aadaan u mahadsantiin sanqaadkii iyo imaashadii aad ku timaadeen waxaan leenahay Ilaahay ka ajir siiyo waqtiga hadda lagu jiro iyo xaaladda lagu jiro la soo yimid wax la heli kara maahin waxaan rabaa marka oo rabaa inaan uga faa'iideysto barnaamijkan baaq oo ah ganacsatada Soomaaliyeed inaan u diro waxa lagu jira xaalad aad u dhib badan oo abaaro oo dadkeena iyo dalkeenaba ay dhiban yihiin waxaan rabnaa marka ganacsatada Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay waqtiga abaaraha waa bilowdeen waa ognahay in gudiyaan u sameeyno wax socdaan laakiin haddana intaas ka badan in la sameeyo rabaa oo barnaamijkaas abaaraha aan la degdegno si dadkeena iyo dalkeena loo badbaadiyo insha Allah diraa marka ujeedka u nimido weyneedna waxay ahayd rugta ganacsiga iyo arrimaha ku saabsan iyo waqtigeeda gabagaba ah waxa soo jeedin doona arintaasi agaasimaha guud rugta ganacsiga laakiin ka hor waxaan siinaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland inuu kalmad noo yiraahdo kadibna agaasimaha guud wixii lagu heshiiyay iyo go'aanada noo soo jeedin doona mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulankan isugu nimi maanta wuxuu daba joogay kulamo badan oo ka dhacay rugaha maamul goboleedyada kaasoo lagu xogool xaariyay sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada rugta ganacsiga ee Soomaaliya waxaana la isugu yimi caasimadda dalka ee Muqdisho falanqeyn badan kadib tashiyadii gudoonka rugaha ganacsiga ee maamul goboleedyada iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed ay isla falanqeeyeen xilli qabsoomidda doorashada rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ku aadanaa inuu dhaco bisha Maarch ee soo socota waxa la isla gartay markii la eegay xaaladda waddanka ku jiro oo ah abaaraha baahsan ee ku baahay dalka Soomaaliya doorashada ka socota waddanka waa runtii wali saldhigan saameyn badan ku yeelan karta inay qabsanto doorashada rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo in caqabad badan oo rugta ganacsiga soo wajahay sidii loo horumarin lahaa ama loo dhameystiri lahaa looga shaqeeyo oo ay ka mid tahay sharciyada qaab dhismeedka abaabulka ganacsatada iyo xiriirada caalamiga ah oo la rabay in dhameystir fiican lagu sameeyo oo qabyo ahaa waxa la isla gartay inaanay xilligan noqon karin xilli ay qabsoomi karto doorashada rugta ganacsigu sidaas darteed markii la ableeyay oo dhinacyo badan laga eegay qabsoomidda doorashada rugta ganacsiga xilliga ay ku habboon tahay waxa la isla qaatay inay noqon karto in muddadaas gaarsiin la sameeyo noqon karta in 8 bisha Maarch 2023 ay dhacdo doorashada rugta ganacsigu inta ka horeysana ay ganacsatada Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa u diyaar garooba oo qof kasta laabtiisa u sii daayo soo uga mid noqon lahaa mid ka qayb qaata doorashada rugta ganacsiga Soomaaliyeed waana muhiim runtii waan isleeyahay in rugta ganacsiga Soomaaliyeed ay noqoto calaamadda u taagan ganacsatada ay kula xiriiri karaan adduunka intiisa kale waxyaabaha adduunka kaga xiranna u noqon karta furo la taaban karo sida gudoonka rugta ganacsigu isla qaatay waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed in ay
ka qayb qaataan samata bixinta ummadda Soomaaliyeed ee abaaraha baahsan ku habsadeen oo runtii u baahan gargaar degdeg ah qofka wax haysta ama ganacsada ah ma noqonayo inuu ganacsado haddii qofkii Soomaaliga ahaa ama beledii baadiyaha joogay uu cayroobo ama ay taabato dhibaatadaasi marka wuxuu u baahan yahay dadka la badbaadiyo baadiyaha biyihii iyo xoolaha wixii la siin lahaana laga wada shaqeeyo arrintaasina waa muhiim qof kasta laabta u sii daaya aad baa mahadsantiin billahi tawfiiq kulamadii maalmahan ka socday rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo isugu yimaadeen runtii dhammaan dawlad goboleedyada rugahooda halkan horteenana ay fadhiyaan ganacsatadii waaweyneed ee wadankan golaha hogaaminta rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo ganacsatada labadan maalmood waxa dhex marayay iswaraysi iyo doodo iyo sidii rugta ganacsiga loogu heli lahaa horumarin hagaajin casriyeyn lagu shaqeyn karo 10 sano ee soo socda sida darteed sida ay cilmigu aaminsan yahay arrinkaas waxa la isku raacay in lagu saleeyo cilmi baaristaas oo qaabka soo socda u dhici doonta marka u horeysa 30 maalmood oo soo socda dawlad goboleedyadu inay soo xulaan 7 qofood oo shaqadaas aadi doona 7daas qofood oo aqoon durugsan u leh cilmi baarista sida loo sameeyo 3 darajo ayayna mari doonaan cilmi baaristaas 4 bilood oo u horeysa waxa la ururin doonaa talooyinka iyo tusaalooyinka ay hayaan dawlad goboleedyada rugahooda ganacsiga marka la soo ururiyo 4 bilood oo ku xigta aqoon-yahanadu waxay u fadhiisan doonaan in ay soo saaraan akhbaarihii ay soo ururiyeen ayaga oo u bedelaya tala soo jeedin ay u baahan tahay rugta ganacsiga marka kadib waxa la abaabuli doonaa shirweyne ay ganacsatada Soomaaliyeed isugu imaan doonaan oo qaadan doona naftirkiisu dhowr bilood in la isugu keeno ganacsatada dhowr boqol aan ka yarayn magaalada Muqdisho halkaas waxa ka soo bixi doona sida ay rugta ganacsiga u shaqeyn karto ayadoo lagu saleynayo wixii 10 sano u dambeeyay aan qabanay sidee 10 sano ee soo socota rugta ganacsiga ay u shaqeyn doontaa maxaa laga bedeli doonaa xiriirka rugta ganacsiga iyo caalamka maxaa laga bedeli doonaa xiriirka rugta ganacsiga iyo dawladda Soomaaliyeed maxaa lagu soo kordhin doonaa xiriiradaas iyo horumarintooda iyo xuquuqda dadka ganacsatada ah ee wadankan degan ee waajibaad fara badan wadankan fuliya sida darteed waxa ay waqtigaasi oo ka soo baxay markii aan qiimeynay aragnayna in dawladda Soomaaliya golayaasheedii in loo caga dhigo inay qaadanayso waqti inay qaadanayso annaguna aanan ka maarmin in marka aan rabno inaan maamul cusub halkan aan u sameeyno rugta ganacsiga in ay korjoogteeyaan wasaaradaha wadanka xafiiska ra'iisul wasaare inay korjoogteeyaan kulamada aan qaban doono ee lagu heli doono maamulka cusub sida darteed maadaama waqti firaaqa ah oo ay golayaashii dawladda ku istaagayaan oo soo baxay waxaan u qaybinay shaqada inaan ku qabanno kuna soo saarno rug cusub oo la tartami karta rugaha ugu yaraan ka dhisan regionka iyo qaaradda Afrika sida darteed madaxda halkan fadhida shaqada ay labadan maalin qabteen waxtar weyn ayaa ka soo baxay waqtigaas aan sugayno in la helo golayaasha dawladana shaqadaas aan ku mashquuli doonaa waxaana ka soo bixi doona oo la jaan qaadi doona dawladda cusub rug casriyeysan oo markaa kadib loo sameeyo maamul ay dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin aad iyo aad aan u mahadsantihiin